markii labaad hadda la isoo doorto city council ahaan 3 sano ay dhamaatay. Tani waa Deeqa Dhalac, waa duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalka Mareykanka. Waa hooyo Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka Mareykanka ee xilalka sarsare ka haya dowladda dalka Mareykanka. Isla sanadkii aynu soo gudubnay ee 2022 ayay Deeqa Dhalac heshay guul kale oo taariikhi ah. Haddaba waa tuma Deeqa Dhalac. dad fara badan oo cadaan ama madow ama Soomaali isugu jira ay aad maaragtay ugu farxeen maaragtay gabadhii ugu horeysay Soomaaliya ee soo galootiya ee muslina oo haddana madow maaragtay inay noqoto qofkii ugu horeeyay ee noqda maaragtay mayor wadankan waxaan imi 1992 waxaan ku soo hordegay stateka Georgia magaalada Atlanta oo halka maaragtay aan caruurteeda ku dhalay 3 ciyaala hadda ka ugu weyn waa 28 jir ka ku xiga waa 22 gabadha ugu yararkana waa 21 markaas aan imid halkan Maine waxaan u soo guurnay 2005 naga qabta naagtan sharci loo bay noo keenaysa waxyaalo noocaas taasna waxay la socotaa office-ka aad hayso mar walba ma arkaysid qofku oranaya waad fiicantahay waad arkaysaa qaar ku oranaya waad xuntahay sababtoo ah sidaanu ekahay haddaad eegto qof muslina qof madow qof immigrant dad fara badan baanan rabin maaragtay codkayga in la maqlo ama ay arkaan qof anigoo kale ah Soomaalida kaliya xataa maaha dadka immigrant-ka jooga magaalada oo dhan ama state-kan oo dhan waxay ugu soo gurmadeen si aan caadi ahayn hadday noqdaan Congolese hadday noqdaan Rwanda hadday noqdaan Burundi hadday noqdaan Iraaqiyiin hadday noqdaan Afghanistan waxay ugu soo baxeen si aan caadi ahayn ما شاء الله sababta haddana waxa weeye waxaad ogaataa mar walba hadii aad dadka aad la shaqeynayso hadii aad dadka marka ay ku baahan yihiin aad u soo istaagayso aad maaragtay Mareykanku waxay dhaan show up if you show up for people dadku iyagana way ku imanayaan takaleeynu ku wanaagsanaa Soomaaliya hadaynu nahay waxa weeye xataa dariskeeni baad lacag u diraysaa sababtoo ah xiriirka maaragtay ka dhaxeeya dadka xiriir aad u maaragtay weyn ah marka wixii Soomaaliya ku dhacay xumaanta anagana wayna soo gaaraysaa run ahaantii marka qof walba Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inuu maaragtay dalkii haduu wuxuu tari karo u taro sababtoo ah halkaas aynu ka wada nimid dalkaas dalkeeniya oo cidina inagu qabsanaynin. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.